كي نوجد جرى عبد إسماعيل أو عبدوية هاي محمد حسن ضرب أو يسقنا غير سمترة أو يسلقوا يسقى مصبيحية وح لقى قاضي دول كبدن وحوي ده عادي أتقعدين شريح دونا وحوي عبد إسماعيل عبد قد كتلفون كانت كتير تيجي عاد الهدية والعدالة كسر لو كسر هذه أقول ما كنت عباس وندو هاي عادي بانكو السلام يا وحوي ما دقيسنaysa sheekadii reer Burco dadku waxay sameyn laayeen inta badan dib laga qaado islaantii xaj maxamed uraan cigaal bad shalay daqeysanaysay waxa iyaguna wax la qaba dad fara badan oo saaka cagaf loo dalbaday hotel xaadi iyo nawaaxidiisa oo dhan buurta kala jeexan dhibaatooyin baa ka taagan miyaydan isoranaynin dhibaatooyinka idinka idin soo gaaray waxa adiga abti kuwa maxamed xasan dalab oo ah ninkii 6 sano u xidhnaa dawladii Jaale Maxamed Siyaad Barre Cumar Cabdi Qaalib isla kumar la soo daayay bal marka hore abtiga dadweynaha u sharax adigu aan dadweynaha marka hore idinka idin sheegay ninkan waa nin reer Samatara oo ka soo jeeda xayrada Musabiixi odayga kalena waa reer xoosh abtiga uu ahay oo isaguna waxa weeye dhulka iyo deegaanka la isku haystaan waa isla galbeedka waa halkan uu waxa weeye ama wuxuu ahay dhulka qaadistu ay faraha baan ku hayso inta badan halaya iyaduna la qabto oo dhanka bariga dhibaatooyin badan laga soo sheegaya intayna bal calculation ka qaban hay noo sharaxo maxamed xasan dalab cabdi ismaaciil ku soo dhawow aad ma santahay waan dhawahay sida radio cagaar aad ma santihiin hadii marka aan ka warramo taariikhda maxaa hasan dalab wuxuu kamid ahaa odayaashii waxa dhacay xasan dalabna wuxuu ahaa ninkii fooqii saddexaad ee Hargeysa dhisay lahaa intaasoo dhismayaalo Hargeysa ku lahaa wuxuu ahaa nin baa mushtara oo Hargeysa oo dhan ay wada garanayso baa mushtarkii magaaladu ahaa wuxuu ahaa nin mataqaana wadanka dhibaato fara badan u soo maray jeel u galay dil u galay wuxuu ahaa ninkii feerasta ilaa meero ku jiray uu jeel marka waxa la yaalo wixii dib soo martay kulli 1988 markuu 18 joogay ayaa dagaalkii Hargeysa uu dhacay deetaan ka baxay wadanka anigu markaa dil baan ku xukunaa Madheera ku jiray Madheera anigu waa ka soo baxay runtii markaa dhibaatadii waqooyiga ka dhacday markaa waxaan la qabnay dadkii ummadii deganay ummadda reer Soomaaliland baan la qabnay iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalka Soomaaliyeed ka dhacay burburka waagi dhibaatooyinku jireen markii dalka lagu soo noqday sanadka bacdi ka bacdi dhulka yagii saq dhaxaa la soo dejiyay reero yaa markaa soo dejiyay runtii dhibaatadaasi meel ay ka timid markii hore maana faasanayn anigu markaa waxaan joogay England adigu muddo markaan hawshii dibadda ka maqlayay muddo marka 7 sanadood waxaan joogay markaa marka Hargeysa arrinta ayada aadaan joogay reeraha la soo dejiyay markii la soo dejiyay oo dawlad weyn oo reer Hargeysa oo ahaa dadkii isugu yeeray waddan kale iga qabsaday reerkaanu ka soo jeednay ee la yiraahdo Ismaaciil Jibriil oo nuux Ismaaciil isku daray way ka qarqaadeen waxa lagu yiri waddan kale oo ninkan iskaga taga wixiisa uu Cabdulla Saad ka iibsaday uu reer Samatar ka iibsaday uu Arab ka iibsaday uu reer ka iibsaday dalku waa lu qaado uga tago xukun bay ka soo saareen nimankii ku qanci waayeen ku tagi waayeen maxkamaday gashay maxkamadaha dalka oo dhan way xukumaan arrinkii fulin u baa socon weeyay oo wax la yiraahdo meesha rabash baa ka dhacaya way soo socotay aniga baarsanade intaasoo jeer baan kala hadlay ninkan imika wadanka haysta anigu oran maayo dee madaxweyne ninka la yiraahdo Muuse markii ugu dambeysay qadiyada ka wada hadalay labadooda kaliya ahayn wuxuu yiri cabdu arrinka gali maayo waxa ku waa si wanaagsan ah dhowna soo gali abu kiisasta ma hadana la furay gudoomiye maxkamadda sare la laalushay dul 10% loo qoray wadaqihii wuxuu dhan soo qabanay
ninkan ka horreeyey waddanka xukumi jiray magaciisu muxuu axmed jiraayo ayaa waraaqihii gaadheen aduu ninkii wuu ka eriyey maxkamadda kiiskaa daraadii buu kaga eriyey 6 hours gudahood sheekadii waxay socoto ninkanaa meeshii yimid waa mar intaan kursi raban oo dhaarin buu yidhi madaxtooyaan ka dhigayaa okay maalin maalmaha ka miduu noo yeedhay wuxuu dhulkii madaxtooyaan ka dhigayaa deetana waxaanu ku nidhi wabdee madaxtooyada somaliland baa dhulkuna annagaa leh intaasoo sanadoodna niman baa haystay dee aad isku xaafad tihiin arrinkaa isagaa inaad wax ka qabato adiga lagaaga fadhiyey haddaad doonayso dee madaxtooyada bolisiitar bay martaa madaxtooyada somaliland baa leh dariiqadeeda soo mar nimanka meesha naga deganna naga rar adigoo dariiqada sharciga raacayana waa idin ku kaambeygaraynaya sharciga waa sarreeye marxabiya guddoon buu yidhi adigu waxa weeyaan ninkii wixiiba dhibimay dhicin meeshii wuu seestay waxaanu ogaatay 20 sannadood kiiskaasi socdaba ninkaasi in intaha dawladiisa noogu jiray ninka dhulkan haystay waa isaga waxa weeyaan markaa ninkan runtii waa taran buu ku yahay waddankii anigu isaga lama yaabaniyo dee reer walba nin tuuga oo budhcaba dee waa la leeyahay somaliland waxa weeyaan ninkaa ummadda baabiinaya dee waxa la ayni laahay dhee reerkii xoogga weynaayo subeerawa la odhan jiray ama sacad muuse la odhan jiray ama reer sabatan la odhan jiray iyo ismaaciil jibriil annagu waxaanu leenahay war ninkan ha ka qarsadaan ummadda ha ka qarsadaan xoolaha u dhacayana inaga xoolaheeda qaadan kari maysid haddaan sidaan lahayn markaan ummadda dhacdo hadhow reer sabatanimaad ku difaaci ina biixi baad noqon doontaa muusow annagana ismaaciil maxamuud baa noqon ninna kabaabiyaaba weyne waa labadeenna ciidanka somaliland ee aad ummadda ku dhibaysa ee aad ku baabiinaysaana wax shaqaynaya waxa weeye ciidanka somalilandna sharciga la sheegaya dee hadduu jiro maxkamaduhu dee muusay u furan yihiin intaasoo xukun oo meeshaa ka dhacay oo fulintii maanta taallo wax uu yaalo xoog buu intuu ku galay ciidan ayuu ku daystay halkana wuxuu yidhi abba ay kala xaqaa bii kala annagaa reer samatarade annagaa naqaana reer samatar annagaa naqaana wuxuu leeyahayna ma jirto waraaqaha uu samaystay xoogga uu leeyahay sharciga dhulka aniga waa fushanayaa sharciga kale ma fataatiir baa intaas oo xukun oo ayaa yeelay halka wadalka boliiska iyo arrimaha gudaha oo xukun oo dad waxoodii lagu haysto sharciga kuwa muxuu ku shaqayn waaye maxkamaduhu ma wax isaga u shaqeeyaa fulintii markaa waxay noqotay fulin ina biixi uu leeyahay oo isagu dadka ku joorjeedo waxa uu sheegay inuu ku fushado dadka kalena bal maxaa waxay anaguna taydii baan fushadaya intaasoo cagaftaan gelinaya taayadiina dumarkaa madaxa baastooda kala dhaaya waxaan ciidan maan gelinaya sharciga xaguu ka keenay waxba ku haysan maysid ciidanka somaliland waxba ku haysan maysid hantida dadkana ku boogmaysid ninna kama weynaanaysid waxaad dhacaysana ku qaadan maysid hadhow toro reer samatarnimo cidina kugu difaaci maysid waxaana leenahay suldaanka guud waxaan ummadda ka qabta waa viruskan coronavirus ee waddanka ku dhacay ha laga qabto weliba hargeysana waan tegaya markaa ku noqdo mar hadda jeelka iyo dadku jeelka ugu hantabaya aniga cirkaygii aad baa maarkunta dhulkiinu waa intee in leeg halkayse ku yaalaan bal dadweynaha u fasir siday dhulkiinu kala yihiin dhulkayagu wuxuu ku yaalaa laagta kaloleyso kadeeduu ku yaalaa waxa weeyaan waa 4 beelood 1970skii ayuu iibsadaygu waa dhul la yaqaano oo beeraha waa dhul aan u iibsana cagafyadii kambarigii barsambarsiino la odhan jiray ee wadada gabilaya hargeysa isku xidha alaabtiisii aan macaadan sisi iibsanay
aanu beeranaynay uu lahaa odaygu kadibna markii la xiray foundationka wuu istaagay dhulka iyagu wuxuu ku yaallaa markaa laagta kalena sokadeeda waa gaarinta gaafanaha lalaaye marka lagu sii socdo gebile gaafanaha ayuu dhinaca koonfurta ka xiga waa halkaa waa 4 meelood oo isku xiga ayuu ahaa way aakhirkii wuxuu idinkaga diray madaxtooyada laga dhisaya annagu waana waay anuuninaasa makalaana gudtana waana waay wasaaradda maaliyadda waan tegay waan baaray annaga ta maxaa naga galay de ama madaxtooya ka dhisaya ama ka dhisa waxyaga annagaa leh tu aanu ahayn uu leeyahay maxkamadda ay xukuntay uu leeyahay xoog baan ku fushadaya taayadiina 8 waxa ku jira 6 nin oo reer samatara oo 4 intay xuqaan leeyihiin ku jira ayaa xukumay oo community-ga xukumay oo maxkamadihiina xukumay oo ilaahay umadiisuba way ogtahay dhulka xoog ku haysan uu leeyahay xoog baan ku deynayaan ku dhisanaya madaxtooyada ma isaga adaa ku dhiibay madaxtooyada qaranka Soomaaliya lahayn يعني وصلش كل سنين يعني عندنا مدحتويه دوري مدحتويه وينو هيسمى حاصف وحكوت على هرجيسه مدحتويه لما وقتك انا حاصف لما كنت على مدحتويه ما قالت ما كان مدحتويه زي شو ملح way ما تعالى haddaan wax kaa weydiiyo dadkan saaka lagu habsaday iyagana dhibaatada in lagu baa goormuuse muuse dhulka ka daalaya ama ku filaanaysa in ku filan uu qaadanaya aadame wallahi de waxa weeyaan umadii ilaahay way yaaban tahay anigu ma garanayo de waxan oo waxa weey tagala aqli xumada dadka loogu sheekaynayo la leeyahay walkiiba dadka dhulka ku haysta walaalkiin dadka dhulka kuma haysta waana biixina ka dadka ku haysta way isqaybinaya waa isaga waana biixi weeyaan mid kale aqliga wanaagsan marka aynu ku fikirro meesha la isku haysto maxkamaddu waxa saartaa waxa la yiraahdaa xayiraad balon lagama santaqal lagama dhisi karo buu lagama dhisi karo dhulka leeyahay intaas 12 sanadood waa mid dacwada ka socotay هذا هرجيسك كانوا بحين تاسو غريو كيلو إنه ويكد سينه وهي حقوق مغنى أما ما شيء هدي لك كان بقول ومحين يدي وأنت صار هسه ترى أنا بقول أنا أخوك ميتر سيد تدوينه فهمان أنت صار في يوم يجي سيء هدول كله يدعو لكسعتي حقوق مغنى وين تدوينه يرى فسر هالكاسة هو وحوليه ما تصدق أنت صار درجة وغمر السنة عبدي إسماعيل هلكا كايرين حق العديق قوته waxaad leedahay annagu dhulka yaga annaga dul taagnayn oo in wax laga dhiso mar walba diidanayn awoodda musadixeen ugu habsatay mooyaane uu adeegsaday inuu waxa weeye ciidankii qaranka maamulo dhulkan kale waxa weeye Umar sawirka ku matalayo isaguna buurta kala jeexan de waba dhul dhisnay xaq ku maqnaa intii waxa soo dhan laga dhisayay ilaa qofna waxa weeye maxkamadda wixii isku haystay maxkamadda ka socota xayiraad baa laga soo saaraa يترى عندي وحدي حيرات روح قرن لما بيستي كرو لما يبي كرو لما يبي كرو شوفك لا ما استعمال كرو مركب حوالتي مركب دول في ماي كان كان دلاس تيار كي ولي ساي وكرا 20 سنه لدوله دعوه كسعتي انت دول كان لي ساي حقوق مغنا هذا كانوا بخير كنتي اما كايا هدي اقل صومال كانوا دول حيلين حقوقهم غلط الجيش ما كان معناه إنه هواكي جاي مرة هدوكا marka markii uu waxa weeye madaxweyne la yiri un bay isagii qoyskiisuba ku habsadeen umada oo dhibaatadaas idin kale idin soo gaadhoon iyo dadkan buurta kala jeexanaya de cid walba de waxa weeye maqaamada waxa weeye anaga ma macnaheedu waxa weeye dabadiisu ku jiray intaas oo sanadood ninka ma haysteen waa laakiin anagu ma naan dareersanayn inuu isagu ku jiro حقيقة ما كان كذا لوقته. لكن كرؤوه كشف مي. ما لنشوف مدحوينها النقضي. أيوه كشف مي. ويه. أوكي. لكن كان ما يقدر يسقيني. ودعوتنا كسعتي. هذا يقدر يسقيني دعوتي كسعتي وراسه سنوات حقوقهم مغلا قوليها أنتم كسنوات. قوليها خلي سن إلا سنوات قوليها ما عقاباتهم كذا. أنتوا قوليها بس يوريس حقوقهم مغلا. إلا حيرات وتعلم مركز لا يحلو الربي إلا هذا تذكر إنه بيحيى إنه خويا أيام كانوا يسوونه
واي انت عسكرت التوليك اللي تقو حيرات دي عسكرت وسوق قمون لو كان دعوت ما كان استي كان سنه كاي لو خري واي dadka idinka كان معناه هو تدو ما شرته waayahay dadka idinka muuse aad uga yaqaana ilaa sagaashamaadkii adiga laftigaagu nin weyn baatay reerkiinu aad bay u yaqaanaan nin reer samatalana waatay dhaqankan sidee ugu taqaaneen iyo dhulka والله أنا waxaan ka mid ahaa nimankii campaign gareyn jiray dhisiyay marka anigu kollaba ismaan lahayn qof waa noocan waayo anigu xaqala anigu dilib baan u galay dalkan waxa weeye si lifekayga shan sanadood baan ku jiray qartama dheera cid walba way taqaanaa ninkii way taqaanaa marka in fact anigu qofna ma jirin dulmi aan ku taageero laakiin waxa weeye qofkan waa qof u dhuuntay waa very high man waa ummadda aad buu ugu dhuuntay ninkani qof laakiin waxaa leeyahay waxa ceebta qaba nin waalan tolkiiba u miiqaba baa layidhi reerka matalkii xoogga weynaa iyo cabdilla siciidkii iyo ismaaciil jibriilkii reerka mayadee sacad muusii ummadda qofkan ha laga qabto dadka ciidanka somaliland ee indhaliid dhegaliida loo isticmaalayana war haddaad sharci ku shaqaynaysaan aroortaan liibaan alcajaala lahay kusoo dhigayaa sharcigayagii oo tiifiyadoo dhan ka sii daynaya intaasoo xukun baa ka soo baxday oo kii ismaaciil jibriil baa ka soo baxay oo kii sacad muuse ka soo baxo kii maxkamado oo dhan baa ka soo baxday marka waxa weeye war sharcigu mayna bixi baa maxay tahay marka maxkamadda way fulisay annaga maxay noogu fulin weyday why marka waxa weeye waa sharcigii waa buyiskareeyey waa meel uu qof isagiiba waxa weeyaan dee waxa weeye timiin waa waxa ka sii waalan oo ka sii khariirada kuwan uu isticmaalaya iyo dadkan uu isticmaalaya iyo waxaan ciidamada sheeganaya iyo waxaan war haddii sharci ninkana ku shaqeeya ciidamada hadda amarkiisa ha qaataan oo maxkamadii waa fuliya waa isagaya maxkamadow waxaa leeyahay intaasoo xukun oo fulin u yaallaa jire waay adi fulin weydeen ina biixi baa dhuule waay sababtu waa maxay waxaasi markaase ummadda bini-aadanka waxaad soomaaliya ku hadasha aad ingiriiska ku hadasha wixii caqli loojika ha lagu eego intaasoo sanaadadu joogee habar biyaa loo fuliyey meel utuugi ka haysto waay daasta waxa weeyaan waxana wax dee caqliga caadiga wuxuu qaadan kara ma abadii marka waxaa leeyahay war ninkan dadkii u cugayo ummadda ka qabta waxa weeye maalkii dadweynaha ayuu 2 sano meel la geeyaan la garanayo intaasoo dhan buu haystaa miyuu dhulka iibsado kollayba hadduu xaaraan doonayo maxaa ku kalifay inuu dhulka dadka ku qabsado wallahi waxaan dee berigaan waxa weeyaan horta ninka tuuga la yidhaha ma dhergo marka waxa weeyaan de anigu ma garanayo xanuun ma garanayo qofka bini-aadankii dee hantida imika nimanka tega dee qofna waxa hayo wax yarun buu ka cunaa dadkuna sida nimika loo noolyihiin bay loo noolaadaa marka anigu ma garanayo de wax dee caqligii muuqaanada caadiga ahaa wuxuu qiib ma garanayo dee wax la garan karayo maaha ya dekra muxuu waayahay muuse weligii fadhihi maayo cigaal baa iska togo aakhire qabtay daahir yaalayn ka degay oo waqtigiisa dhammaaday sirenya ka xanuustay muusa fadhiya garanti maha inuu muuse fadhiya saad sheegtayna muusuu noqonaya maxaa dhulkiinii idinka xala dhulkii 80kii la kala qaaday ayaa dadku dib u heleen xamar dad 40 sano laga haystay baa dhulkoodii helay qofna wuxuu leeyahay laga dhaqaajin maayo maxaa u idiin xala maxamed xasan dalab caruurtiisii iyo cayladiina dhammaan anagu waxaan taaganahay anigu waxa weeye horta ninkuwa iyadaa layidhi waa adigoo kale aniga way ugu adag tahay qof bini-aadmi inuu iska dawaaciyo ku aan garanaya anigu kama sii xag jira marka anagu waxaanu taaganahay bal waxaadan isweydiinaynaa halgankuu sheeganayana waanu uga horreynay يعني نكال سوي نوضم عيلة أنا قدرت تكوش سلاش وحوي نكال سوي جندم عيلة بنتاجن هاي نو لو حيجا لما نقاش كرو ولا كمان عقوينا حدور اللي مر عقو جرينا
reerku yahay baanu nacay ma garatay haddii reernimo wax ku doonayo ninna ka xoognayan maayo inuu yahay buu noqon doonaa haddii sharci wax ku doonayana sharciga iyaga waanu haysanaa oo weliba kii adeerkii iyo caaqilkiisa xukumay baanu haysanaa oo kii maxkamadahaanu haynaa oo fulinkii baa taalayna xaasacaligaa imika jooga kii uu soo saarayaa yaalla marka waxa weeye dee annagu waxa weeye dee ninka u imaan maayo dadkana waxaan leenahay dee iska celiya nina waxa kaga baqan dowladnimo dee nina waxa kaga baqan ninka waa reesamatarnimo waxa kaga baqan iska celi ayaanu taaganaha annagu waxyaga waxa weeye annagay noo waxa weeya yani waxba naga degi laa sidee buu wixiina u damci karaaba waxa laala wixii ka wanahaa iyo maxkamadii hore iyo dowladii iyo caaqiladiina waxay kala dhex galeen iyo Sacad Muuse kala dhex galay iyo xukuumadii oo dhan warqad Muuse qoray baa wixii ba ka sareysay oo amarku lagu fuliyay absolute wara qorta uu qoray ma hayo laakiin waxaan hayaa ciidan uu galiyay وعمرو بحياه ciidan uu galiyay deetana meeshu laakiin wali anigu waxaan document isaga ka hayo waxa weeyaan arrimaha mucjisada ah anigu aan ku arkay waxa weeyaan maxkamaddu waxay noo xukuntay in annaga dhulkaygii loo fuliyo at the same time ay kharashkii dacwadda laga qaado nimanka laga xukumay waxa weeyaan nimankii laga xukumay lacag buu siiyey at the same time lacagta uu bixiyey nimanka qaybinaya waxa ka mida kuwii laga xukumay ayaa lacagta qaybinaya oo dadka meesha degan iyo qaar lagama deganayno qaybinaya waan hayaa waraaqihii loo tiriya hayro kala qortay marka anigu waxaan jeclahay hal iyo jeer waxaan baanan briefkiisa haynin anaka hada marka waxa weeye strange waana tacadaynaysa brief ka dhigaysa inuu haystay 20 sano muddaha dabadiisa ku jiray because nimankii meesha laga xukumay ayuu afartii meesha ka deganaa إلى العكس يدون قريبية مثل العكس قريبية ويسرع على الدولة كيسة من دولة إلى من يحتوي توقف حقوق حكمنا كلها لا مرخصين وفيصل بوسته أو مثل العكس الدين خلوا يقول شيء بحيري اللي هو يلوج هو بطل ميزانية الدولة تكون شراء متشريء العكس اللي بحيري هنا وحلقة كانت أصلا قاضي العكس هو في برنامج خدمتي وفيصل بوسته وقضينا برنامج marka waxa weeye hadday faysal busta iyo ina bixisay shuraaka ku noqdo meesha uu dhaweyn ka dhisan taaweyna waxa weeyaan anagu ku yimaadeen waxa uu leeyahay waa la iska celin doonaa waa la iska celin kuwa maanta galayna ee uu baabiyeyna way iska celin doonaan ummadda Soomaaliyeedna waxa leeyahay war sharciyeed jiro madaxweynena ma jiraan walaalo hanti naftaada iyo hantidaada si aad u badbaadsan lahayd iyo dariiqada aad ku badbaadsan lahayd fulowgeedka aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdi Ismaaciil iyo Maxamed Xasan dalab dhulkiisii oo waxa weeye ay cayladan iyagu weerar ku soo qaaday Muuse Bixi aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii dambe